السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب دمان ولا لها شرفت له. وحال سعتان إنه إله عز وجل القرآن وكل هاي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قفك نفن ولايا وحولم ديها قفن وليي ومدعو إذن. سأزدراد ولا الوحان إله عز وجل عن إذن ويديني. دمان أنت كقب قادة مشروعا إيوه مشروعي هراء إيوه dhammaan mashaariicda oo khayriga ah ee hore loo fuliyay ama la fulin doono in uu ku siiyo wax waliba oo wanaag ah ay u niyeesteen sidoo kale waxaan ilaahay weydiinay in uu idinkaga badbaadiyo wax alaale wixii shar ah oo aad ilaahay aad kaga magan gasheen intaas kadib walaalayaal waxaan idinku wargelinaynaa in aan xamladan aan adeegsanay walaalo Soomaaliyeed oo wakiil inaga ahaa oo gobol waliba iyo tuulo waliba inoo joogay walaalahaasi waxay ku imaadeen wada tashi dheer oo aan kala tashanay rag culamaa diin ah iyo rag akhyaar ah oo ka soo jeeda qaarkoodna ku nool goboladii iyo tuulooyinkii aan ka howlgalnay intaas kadib wakiilada waxaan ku xirnay shuruudo badan shuruudihiina way soo buuxiyeen markay inoo soo gudbiyeen reportkiina waxaan xaqiiqsanay inay ahaayeen rag aamin ah oo waajibkoodii gutay waxaan sidoo kale walaalayaal aan idinku wargelinaynaa deegaanada iyo dadka aan ka sii dooranay waxaan ku dooranay hadba sida ay u kala baahi badan yihiin marka insha Allah marka reportkan dhageystaan kadib wixii su'aal ah iyo talo iyo tusaale ah waxaan idinka codsanaynaa inaad inoo soo gudbisaan aad baad u mahadsantiin jazakumullahu khayr wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillahir rahmaanir rahiim taariikhdu markay ahayd 3 bishii saddexaad sanadkan 2017 waxa inoo suura gashay in aan bilowno xamladii labaad ee gurmadkii abaaraha ee Soomaaliya abaartii loogu magac daray Sima xamladan ayaa waxay socotay ilaa iyo 4 bishii sideedaad ee sanadkan 2017 waxa inoo suura gashay in aan aruurino lacag gaaraysa $229,102 waxaan gurmadkii abaaraha aan ku bixinay lacag gaaraysa $210,103.34 inta ay xamladan socotay waxa inaga baxday lacag gaaraysa $7,866.75 oo kharash ah kharashkaasi ayaa wuxuu ku baxay registrationka hay'adda maadaama hay'addu ay lacag badan aruurisay waxay u baahatay in laga dhigo tax deductible sidoo kale waxaan u baahanay in aan yeelano xafiis oo hay'addu ay leedahay si aan ugu diyaarino reportyada hay'adda oo haddii ay dawladda ay noo baahatana ay nagula kulmi karto markii aan kala jarnay lacagtaan aruurinay iyo lacagaha aan bixinay waxaa soo hartay lacag gaaraysa $11,132 oo aan maanta aan ku hayno akoonka hay'adda waxaan rajaynaynaa in aan ku bixin doono walaalo Soomaaliyeed oo u baahan lacagta inta badan waxaa laga helay walaalaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan Victoria si shakhsi ah ay u bixiyeen hase haatee waxaa jiray jamciyaad oo si gaar ah isu xilqaamay oo ayagu lacagta soo aruuriyay kadibna nagu wareejiyay waxaa ka mid ah jamciyadda amsa waxay nagu wareejisay lacag gaaraysa $67,000 lacagtaasi ayaa waxa ay ka aruuriyeen jamaacada masaajidka waxaa sidoo kale walaalkeen Abu Hamza jamciyadiisa My Center ayaguna ay nagu wareejiyeen lacag gaaraysa $18,620 waxaa sidoo kale gurmadkan abaaraha ka qayb qaatay hay'adda Australian Light Foundation waxay sidoo kale nagu wareejiyeen container oo 40 feet ah oo cunto iyo dhar ku jirtay walaalkeen wuxuu ugu talagalay in aan gaarsiino walaalaha Soomaaliyeed ee barakacayaasha ay ku nool xiriyaha magaalada Muqdisho wuxuuna naga codsaday ka gurmad ahaan in aan bixino lacag $4,000 oo containerka lagu qaado iyo wixii kharasha bixi doono markii containerka magaalada Muqdisho la geeyo kadibna gurmad ayaa qaybin doonta raashinkaasi iyo dharkaasi waxaa sidoo kale gurmadkan ka qayb qaatay masaajidka Al Sadiq magaalada ama xaafadda Heidelberg
Al-Sadiq waxay nagu wareejiyeen lacag gaaraysay $4,092 wixii ka soo hara oo lacag ah saan horey u sheegay waxaan ka helnay walaalo kale oo Soomaaliyeed oo magaaladan ku nool iyo walaalo kale ku nool gobolka New South Wales ama magaalada Sydney. Ilaahay ayaan u weydiinay in uu ka abaalmariyo dhammaan intii wax ku bixisay mashruucan. waxaa xamladan labaad inoo suura gashay in aan deeq aan gaarsiino ilaa 18 gobol ee Soomaaliya iyo 2 gobol oo ka tirsan gobolada ugu waaweyn ee dalka Yemen oo xilligan uu dagaal ka socdo. gobolada aan Soomaaliya aan tagnay waxaa kamid ah gobolka Baay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Gedo, Mudug, Galgaduud, Hiiraan, Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Sanaag, Sool, Togdheer, Waqooyi Galbeed, Nugaal, Bari, Awdal, Banaadir iyo Yemen labadiisa magaalo Sanca iyo Cadan. taariikhdu markay ahayd 20ka bisha shanaad ee sanadkan 2017 wuxuu Ilaahay inoo suura geliyay in aan deeq raashin aan gaarsiino xarun lagu magacaabo Imaam An-Nawawi ee ku taala magaalada Muqdisho oo lagu xanaaneeyo waxna lagu baro ilaa iyo 249 aytaam. xiradaas ayaa waxaan gaarsiinay 1500 kiilo oo bariis ah, 900 kiilo oo bur ah, 450 kiilo oo sonkor ah iyo 340 litir oo saliid ah. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 5ta bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxaa inoo suura gashay in aan deeq raashin aan ka qaybino deegaan lagu magacaabo mashruuca ee ka tirsan degmada Awdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. deeqdaas ayaa waxaa ka faa'iideystay 200 qoys oo ku nool deegaankaasi. waxaa qoys waliba uu Ilaahay u calfay in uu helo 12 kiilo iyo bar oo bariis ah, 5 kiilo oo bur ah, 10 kiilo oo sonkor ah iyo 4 litir oo saliid ah. waxaa sidoo kale 29ka bisha afaraad ee sanadkan 2017 inoo suura gashay in aan deeq raashin aan gaarsiino deegaanka Ceelasha Biyaha ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. deeqdaas ayaa waxaa ka faa'iideystay 30 qoys. qoyskiiba wuxuu Ilaahay u calfay in ay helaan 12 kiilo iyo bar oo bariis ah, 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah, 12 kiilo iyo bar oo bur ah, 2 kiilo oo timir ah iyo 3 litir oo saliid ah. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 30ka bisha afaraad ee sanadkan 2017 wuxuu Ilaahay inoo suura geliyay in aan deeq raashin aan ka qaybino deegaanka lagu magacaabo Balcad ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. deeqdaas ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa iyo 120 qoys. qoys waliba wuxuu Ilaahay u calfay in ay helaan 12 kiilo iyo bar oo bariis ah, 12 kiilo iyo bar oo bur ah, 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah, 2 kiilo oo timir ah iyo 3 litir oo saliid ah. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 12ka bisha shanaad ee sanadkan 2017 waxaa inoo suura gashay in aan deeq raashin aan gaarsiino deegaanka lagu magacaabo Jowhar ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. deeqdaas ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa iyo 80 qoys. qoyskiiba wuxuu Ilaahay u calfay in ay helaan 12 kiilo iyo bar oo bariis ah, 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah, 12 kiilo iyo bar oo bur ah, 4 kiilo oo timir ah iyo 3 litir oo saliid ah. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 10ka bisha saddexaad ee sanadkan 2017 waxaan deeq raashin aan gaarsiinay degmada Baydhabo ee ka tirsan gobolka Baay. deeqdaas ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa iyo 60 qoys. qoyskiiba wuxuu Ilaahay u calfay inay helaan 25 kiilo oo bariis ah, 5 kiilo oo sonkor ah iyo 3 litir oo saliid ah. sidoo kale biyo dhaamin ayaan u sameynay dadka barakacayaasha ah
waxaan qaybinay ilaa iyo 224,000 liitar oo biyo ah. waxaa sidoo kale isbitaalka ku yaala magaalada Baydhabo aan ka qaybinay ama aan geynay dawo loogu talagalay in lagu daweeyo walaalaha la ildarnaa cudurka shuban biyoodka oo markaas ay u baahnaayeen. waxaa sidoo kale isla magaalada Baydhabo taariikhda markay ahayd 9 bishan afaraad iyaduna aan gaarsiinay deeq raashin. deeqdaas ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa 84 qoys. qoyskiiba wuxuu Ilaahay u calfay in ay helaan 25 kiilo oo bariis ah, 5 kiilo oo sonkor ah, 3 liitar oo saliid ah. sidoo kale biyo dhaamin ayaan sameynay ilaa iyo 126,000 oo liitar oo biyo ah ayaan maalintaasi qaybinay. waxaa sidoo kale isla maalintaasi aan ma arkaysaa aan qaybinay bacaha loogu talagalay marka uu roobka imaado dadka barakacayaasha in ay guri ay ku dhistaan oo teendha ay u noqoto ama guri u noqdo. ilaa 200 qoys ayaan qoyskiiba waxaan siinay hal bac ayaan siinay oo ay ku filnayd. sidoo kale 16 bisha June ayaa waxaan sameynay barnaamij iftaar saa'im ah oo aan ku afurinay ilaa iyo 130 arday oo kamid ah ardada xirta ah magaalada Baydhabo aan guri ku lahayn intooda badan oo waxbarasho u joogay masaajidada ku noolaa ayaan afur u sameynay. 130 kaasi ruux habeen walba ayaan afur u sameynaynay ilaa iyo 5 habeen. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 10 bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxaa inoo suura gashay inaan mar kale aan gobolka Baay inaan gaarsiino deeq raashin ah. deeqdaas ayaa waxaa ka faa'iideystay magaalada Buur-Hakaba 42 qoys ku nool. qoyskiiba wuxuu Ilaahay u calfay 25 kiilo oo sonkor ah, 50 kiilo oo misiga ah ama haruur qof walba sidoo u yaqaano, iyo 3 liitar oo saliid ah. sidoo kale 3 bisha shanaad ee sanadkan 2017 waxaan deegaan lagu magacaabo Isgoy oo ka tirsan gobolka Baay aan ka qaybinay deeq raashin ah. deeqdaas ayaa waxaa ka faa'iideystay 20 qoys oo qoyskiiba uu Ilaahay u calfay in ay helaan 25 kiilo oo bariis ah iyo 3 liitar oo saliid ah. sidoo kale 3 bisha shanaad ee sanadkan 2017 deegaan lagu magacaabo Qansax Dheere ee ka tirsan gobolka Baay ayaan deeq raashin aan ka qaybinay. deeqdaasi ayaa waxaa ka faa'iideystay 25 qoys. qoyskiiba wuxuu Ilaahay u calfay 4 kiilo oo sonkor ah, 25 kiilo oo bur ah iyo 3 liitar oo saliid ah. taariikhdu markay ahayd 10 bisha saddexaad ee sanadkan 2017 waxaan deeq raashin aan ka qaybinay deegaan lagu magacaabo Buur Dhuxunle oo ka tirsan gobolka Bakool. raashinkaas ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa iyo 154 qoys. qoyskiiba wuxuu Ilaahay u calfay 25 kiilo oo bur ah, 3 kiilo oo sonkor ah iyo 3 liitar oo saliid ah. sidoo kale 7 bisha afaraad ee sanadkan 2017 deeq kale oo raashin ayaa waxaan ka qaybinay deegaan lagu magacaabo Weejid ama Waajid oo ka tirsan gobolka Bakool. deeqdaas ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa iyo 45 qoys. qoyskiiba wuxuu Ilaahay u calfay 25 kiilo oo bariis ah iyo 3 liitar oo saliid ah. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 7 bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxaa inoo suura gashay inaan deeq raashin aan ka qaybino deegaan lagu magacaabo ama degmada Xudur ee ka tirsan gobolka Bakool. deeqdaasi ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa iyo 49 qoys. qoyskiiba waxaa Ilaahay u calfay 25 kiilo oo bur ah iyo 3 liitar oo saliid ah. sidoo kale 10 bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxaan ku laabanay deegaan lagu magacaabo Buur Dhuxunle
oo ka tirsan gobolka Bakool aan mar kale aan deeq raashin aan ka qaybinay deegaankaasi deeqdii aan ka qaybinay maalinta ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa 74 qoys qoyskiiba wuxuu helay 12 kiilo iyo bar oo bur ah iyo 12 kiilo iyo bar oo bariis ah sidoo kale taariikhdu markay ahayd 10ka bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxaan deeq raashin aan u qaybinay ilaa 76 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Rabdhuure ee ka tirsan gobolka Bakool qoys waliba wuxuu Ilaahay u calfay inay helaan ku dhawaad 25 kiilo oo bur ah sidoo kale taariikhdu markay ahayd 18ka bisha shanaad ee sanadkan 2017 ayaa waxaan deeq raashin aan u qaybinay ilaa 300 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Ceel Berde oo ka tirsan gobolka Bakool qoys waliba wuxuu Ilaahay u calfay in ay helaan ku dhawaad 17 kiilo oo bur ah 4 kiilo oo bariis ah iyo 2 litir oo saliid ah sidoo kale taariikhdu markay ahayd 10ka bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxa uu Ilaahay inoo suurageliyay in aan deeq raashin aan u qaybino ilaa 70 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Garas Weyne oo ka tirsan gobolka Bakool qoys waliba wuxuu Ilaahay u calfay inay helaan 12 kiilo iyo bar oo bariis ah iyo 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah sidoo kale taariikhdu markay ahayd 3 bisha shanaad ee sanadkan 2017 waxay inoo suuragashay in aan deeq raashin aan gaarsiino ilaa 30 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Buur Dhuxunle oo ka tirsan gobolka Bakool qoyskiiba wuxuu Ilaahay u calfay in ay helaan 25 kiilo oo bariis ah iyo 3 litir oo saliid ah waxaa sidoo kale oo Ilaahay inoo suurageliyay in aan deeq raashin aan gaarsiino ilaa 25 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Qansax Dheere oo ka tirsan gobolka Bakool taariikhdu markay ahayd 3 bisha shanaad ee sanadkan 2017 qoyskiiba waxa uu Ilaahay u calfay in ay helaan 25 kiilo oo bur ah 4 kiilo oo sonkor ah iyo 3 litir oo saliid ah sidoo kale taariikhdu markay ahayd 3 bisha shanaad sanadkan 2017 waxa inoo suuragashay in aan dawo gaarsiino deegaan lagu magacaabo Biyoli oo ka tirsan gobolka Bakool dawadaasi ayaa waxaa loogu talagalay walaalaha la ildarnaa xanuunka shuban biyoodka ah waxayna iskugu jirtay 540 faleebooyin ah iyo dawo kale oo antibiotics ah oo loogu talagalay xanuunka shuban biyoodka taariikhdu markay ahayd 10ka bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxaa inoo suuragashay in aan deeq raashin aan gaarsiino ilaa 100 qoys oo ku nool magaalada Kismaayo ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose qoys waliba waxa uu Ilaahay u calfay in ay helaan 25 kiilo oo bur ah 25 kiilo oo bariis ah iyo 3 litir iyo bar oo saliid ah waxaa sidoo kale inoo suuragashay taariikhdu markay ahayd 10ka bisha shanaad ee sanadkan 2017 in aan deeq raashin aan u qaybino ilaa 120 qoys oo ku nool gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan magaalooyinka Bu'aale Jilib Salagle iyo Saakow qoys waliba waxa uu Ilaahay u calfay in ay helaan 15 kiilo oo bur ah 15 kiilo oo bariis ah 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah iyo 3 litir oo saliid ah sidoo kale taariikhdu markay ahayd 8 bisha afaraad ee sanadkan 2017 wuxuu Ilaahay inoo suurageliyay in aan deeq raashin aan gaarsiino ilaa 109 qoys oo ku nool magaalada Beled Xaawo ee ka tirsan gobolka Gedo waxaa qoys waliba uu Ilaahay u calfay in ay helaan 25 kiilo oo bariis ah 25 kiilo oo bur ah iyo 3 litir oo saliid ah sidoo kale 117 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Daywabar oo ka tirsan
magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaan waxaan u qaybinay deeq raashin ah taariikhdu markay ahayd 14 bisha afaraad ee sanadkan 2017 qoyskiiba waxa ay heleen 12 kiilo iyo bar oo bariis ah 12 kiilo iyo bar oo bur ah 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah 3 liitar oo saliid ah iyo 2 kiilo oo timir ah sidoo kale taariikhdu markay ahayd 7 bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxay noo suuri gashay in aan deeq raashin aan gaarsiino ilaa 60 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Carfuuda oo ka tirsan gobolka Mudug qoys waliba waxa ay heleen 25 kiilo oo bariis ah 25 kiilo oo bur ah 25 kiilo oo sonkor ah 3 liitar oo saliid ah iyo 2 kiilo oo timir ah waxaa sidoo kale inoo suuri gashay taariikhdu markay ahayd 9 bisha afaraad ee sanadkan 2017 in aan 50 qoys aan u qaybino deeq raashin ah qoysaskaas ayaa waxay ku noolaayeen deegaan lagu magacaabo Malaasle degmada Jariiban ee gobolka Mudug qoys waliba waxa uu Ilaahay u calfay inay helaan 25 kiilo oo bariis ah 25 kiilo oo sonkor ah 25 kiilo oo bur ah 2 kiilo oo timir ah iyo 3 liitar iyo bar oo saliid ah sidoo kale taariikhdu markay ahayd 16 bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxay noo suuri gashay in aan deeq raashin aan gaarsiino ilaa 188 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Afbarwaaqo oo ka tirsan gobolka Mudug qoys waliba waxa ay calafsadeen 12 kiilo iyo bar oo bur ah 12 kiilo iyo bar oo bariis ah iyo 1 liitar iyo bar oo saliid ah waxaa sidoo kale inoo suuri gashay taariikhdu markay ahayd 3 bisha shanaad ee sanadkan 2017 in aan 100 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Jilable oo ka tirsan gobolka Mudug aan u qaybino deeq raashin ah qoyskiiba waxa uu Ilaahay u calfay inay helaan 12 kiilo iyo bar oo bariis ah 12 kiilo iyo bar oo bur ah 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah 3 liitar oo saliid ah 2 kiilo oo timir ah iyo 2 kiilo iyo bar oo caano boora ah sidoo kale taariikhdu markay ahayd 10 bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxay noo suuri gashay in aan deeq raashin aan gaarsiino ilaa 83 qoys oo ku nool magaalada Guriceel ee ka tirsan gobolka Galgaduud qoys waliba waxa ay heleen 12 kiilo iyo bar oo bariis ah 12 kiilo iyo bar oo bur ah 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah 3 liitar oo saliid ah 1 kiilo oo timir ah iyo half kiilo oo caano boora ah waxaa sidoo kale inoo suura gashay taariikhdu markay ahayd 10 bisha afaraad ee sanadkan 2017 in aan deeq raashin aan u qaybino ilaa 154 qoys oo ku nool magaalada Ceelbuur ee ka tirsan gobolka Galgaduud qoys waliba waxa uu Ilaahay u calfay 25 kiilo oo bur ah iyo 3 liitar oo saliid ah waxaa sidoo kale inoo suuri gashay taariikhdu markay ahayd 11 bisha afaraad ee sanadkan 2017 in aan deeq raashin aan u qaybino ilaa 87 qoys oo ku nool magaalada Caabudwaaq ee ka tirsan gobolka Galgaduud qoys waliba waxa ay heleen 12 kiilo iyo bar oo sokor ah 12 kiilo iyo bar oo bur ah 12 kiilo iyo bar oo bariis ah 3 liitar oo saliid ah 3 kiilo oo timir ah iyo half kiilo oo caano boora ah waxaa warbixin inagu soo gaartay tuulooyin ka tirsan gobolka Bari oo ay degaan dad xoolo dhaqato ah in ay ka jirto biyo la'aan baahsan sidaas daraadeed waxaan ku guuleysanay in aan gaarsiino ilaa 36 booyadood oo biyo ah oo aan u qaybino dadka xoolo dhaqatada ah oo ku kala nool deegaanadaasi
sidoo kale taariikhdu markay ahayd 13 bisha afaraad ee sanadkan 2017 waxay noo suura gashay in aan deeq raashin aan gaarsiino ilaa 68 qoys oo ku nool deegaanka Qalax ee ka tirsan gobolka Waqooyi Galbeed. qoys waliba waxa ay heleen 25 kiilo oo bariis ah, 25 kiilo oo bur ah, 25 kiilo oo sonkor ah iyo 5 litir oo saliid ah. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 3 bisha lixaad sanadkan 2017 waxay noo suura gashay in aan deeq raashin ah u qaybino 145 qoys oo ku nool magaalada Hargeysa. qoys waliba waxa ay heleen 25 kiilo oo bur ah, 25 kiilo oo bariis ah iyo 3 litir oo saliid ah. waxaa sidoo kale magaalada Hargeysa aan ka fulinay mashruuc iftaaru saa'im ah oo aan bilownay taariikhdu markay ahayd 20 bisha lixaad ee sanadka 2017. mashruucan ayaa waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku jiray isbitaalka Hargeysa oo run ahaantii qaarkood ay markii ay ka kala imaadeen magaalooyinka kale oo aan deegaan ku lahayn magaalada Hargeysa oo isbitaalka oo bukaan u jiifay. marka walaalaha ayaa inoo soo gudbiyay baahidaasi, annagana waxaan go'aansanay ilaa 5 haween in aan afurino ilaa 100 ruux oo ku sugan isbitaalkaasi. ilaahayna waa inagu guuleeyay, 5 haween ayaan afurkii aan ka bixinay ilaa 100 ruux. ilaahayna ha ka ajirsiiyo intii la baxday sadaqadaas. taariikhdu markay ahayd 16 bisha shanaad ee sanadkan 2017 waxay noo suura gashay in aan 100 qoys oo ku nool deegaanka lagu magacaabo Obsiye oo ka tirsan degmada Burco ee gobolka Togdheer in aan u qaybino deeq raashin ah. qoys waliba waxa ay heleen 12 kiilo iyo bar oo bur ah, 12 kiilo iyo bar oo bariis ah, 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah, 3 kiilo oo timir ah iyo 3 litir oo saliid ah. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 12 bisha afaraad ee sanadkan 2017 ayaa waxaa inoo suura gashay in aan deeq raashin aan gaarsiino ilaa 150 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Ceelbuh oo ka tirsan degmada Badhan ee gobolka Sanaag. qoys waliba waxa uu Ilaahay u calfay 25 kiilo oo bariis ah, 25 kiilo oo bur ah, 3 litir oo saliid ah iyo 3 kiilo oo timir ah. waxaa sidoo kale noo suura gashay taariikhdu markay ahayd 26 bisha shanaad ee sanadkan 2017 in aan deeq raashin aan gaarsiino 160 qoys oo ku nool deegaan lagu magacaabo Dahar oo ka tirsan gobolka Sanaag. qoys waliba waxa ay heleen 12 kiilo iyo bar oo bariis ah, 12 kiilo iyo bar oo bur ah, 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah, 3 litir oo saliid ah iyo 3 kiilo oo timir ah. waxaan sidoo kale deeq raashin aan ka qaybinay taariikhdu markay ahayd 17 bisha afaraad ee sanadkan 2017 deegaan lagu magacaabo Boon oo ka tirsan Dhagax Madow ee gobolka Awdal. deeqdaasi ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa 50 qoys. qoys waliba waxa ay heleen 12 kiilo iyo bar oo bariis ah, 12 kiilo iyo bar oo bur ah, 12 kiilo iyo bar oo sonkor ah, 3 litir oo saliid ah iyo 2 kiilo oo timir ah. sidoo kale taariikhdu markay ahayd 21 bisha shanaad ee sanadkan 2017 ayaa waxaan deeq raashin aan ka qaybinay degmada Burtinle ee gobolka Nugaal. deeqdan ayaa waxaa ka faa'iideystay ilaa 50 qoys. qoys waliba waxa ay heleen 25 kiilo oo sonkor ah, 25 kiilo oo bariis ah, 25 kiilo oo bur ah, 3 litir oo saliid ah iyo 2 kiilo oo timir ah. waxaa magaalada Buuhoodle ee gobolka Sool inaga soo gaartay warbixin ah in ay dawadii ka dhamaatay isbitaalka weyn ee magaalada Buuhoodle oo xilligaasi lagu daweynayay ilaa 300 oo bukaan oo la ildarnaa xanuunka shuban biyoodka.
sidaas daraaddeed waxaa inoo suura gashay ilaahay fadligii taariikhdu markay ahayd 18 bisha afaraad ee sanadkan 2017 in aan u dirnay lacag $4,000 oo lagu iibiyo daawada markaa ay bukaanka ay u baahan yihiin. ilaahay ha ka ajirsiiyo walaalka wakiilka inaga ahaa, wuxuu ku guuleystay in uu u geeyo daawada ay markaa ay u baahnaayeen ilaa 3,600 oo faleeba iyo daawooyin kale oo antibiotic ah ayaan gaarsiinay isbitaalkii. waxaa sidoo kale warbixin inagu soo gaartay in bukaankii aysan haysan dharka ay ku bedelan lahaayeen, waayo qaarkood waxaa laga soo qaaday si emergency ah loogu soo qaaday tuulooyinka, dhar ay ku bedeshtaan ma ay haysan. sidaas daraaddeed lacag $4,000 ayaan u dirnay oo iyaduna dhar loogu iibiyey bukaankii isbitaalka ku jiray. run ahaantii xilli ay ma arkaysa ay u baahnaayeen ayay deeqdaasi ay u tagtay walaalaha dhibaataysnaa. akhiiran walaalaha sharafta leh, slidekan wuxuu ugu dambeeyaa riboodkii xamladii labaad ee gurmadkii abaaraha ee Soomaaliya. sida idin muuqatana waxaan gaarsiinay deeqdan dalka Yemen oo aynu walaalaha nahay. run ahaantii xilligan dagaalo ay ka socdaan, deeqdan ama lacagtan waxaynu soo gaarsiisay inoo keentay gabar ka mid ah gabdhaha muxsinaadka run ahaantii aadka inoola shaqeeyey oo abaarihii Soomaaliya lacag badan ku darsatay, tanna inaga codsatay inaan si gaar ah ugu geyno dalka Yemen. run ahaantii waxaa policy sharci inoo ahaa haddii uu ruuxa inoo keeno lacag oo inaga codsado tuulo ka mid ah tuulooyinka dalka aan ka soo jeedna ee Soomaaliya inaan u geyno, kama inaan aqbali jirin, waayo waxaan kalsooni isku qabnay in aynan walaalaha Soomaaliyeed gobol ama qabiil aynan uga eexanaynin, mar waliba aan beegsanaynay meesha baahida daran ay ka jirto. walaalkana waxaan dhihi jirnay haddaad kalsooni ugu qabtid lacagta inoo keen annagaa gaarsiinayna walaalo baahan, haddii kalena walaalo lacagtaada iska cesho. marka laakiin gabadhan waan ka aqbalnay, waayo tii horena way ka qayb qaadatay, tanna si gaara inooga codsatay. waddankuna waa waddan aan Soomaali ahayn, baahidana ay ka jirto aan ognahay. sidaas daraaddeed waxaan ku guulaysanay taariikhdu markay ahayd 31 bisha 6 ee sanadkan 2017 in aan deeq raashin aan u qaybino 120 qoys oo ku nool magaalada Cadan ee dalka Yemen. qoys waliba wuxuu ilaahay u calfay deeq raashin ah oo gaaraysa 9 kiilo oo bariis ah, 10 kiilo oo sonkor ah, 1 gasac oo yaanyo shiishiid ah, 4 litir oo saliid ah, 2 kiilo iyo bar oo baasta ah, 10 kiilo oo bur ah, 3 gasac oo kalluunka la soo warshadeeyay ah iyo cunto kale oo badan. waxaa sidoo kale inoo suura gashay in aan deeq taa la mid ah aan ka qaybino magaalada Sanca ee dalka Yemen. walaalayaal waxaan ilaahay Azza wa Jalla u weydiinaynaa dhammaan walaalaha mashruucan lacagta ku bixisay iyo mashaariicda soo socda ku bixin doonta iyo kuwa fakarka iyo dadaalka ku daray inuu ilaahay miisaankooda xasanaadka uu ku kabo, inuu ilaahay culays ka mid ah culeysyada adduunyo iyo aakhira haysta qof walba inuu ilaahay kaga ma arkaysa fududeeyo, ilaahay inuu awlaadeena inuu ilaahay nagu xifaadeeyo, inuu ilaahay waalidiinteena inuu qubuurtooda u waasiciyo inta dhimatay, inta noolna adduunyo aakhira inuu ilaahay ku barwaaqeeyo, annagana aafaadka adduunyada jira iyo cudurrada xunxun la sheegayo inuu ilaahay naga badbaadiyo, inta ummad oo muslimiin oo xanuunsanna inuu ilaahay ku caafiyo, dalkeena oo run ahaantii 30 sano sii burbursan inuu ilaahay inagu hagaajiyo, quluubta walaalaha Soomaaliyeed ee la kala fogeeyeyna inuu ilaahay isku keeno oo ku mideeyo sadaqadan darteeda ayaan ilaahay u weydiinaynaa. aad baad u mahadsantihiin walaalayaal, jazaakum allah khayran, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.